Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar labaad channelka. Magacaygu waa Khadar Miicaad. Sidaan hore ula soo soconay waxaa inoo socday casharo oo ku saabsan barnaamijka muxuuhadane caalamiga ee Photoshop. Casharkii hore waxaan kusoo qaadanay marka aad sawir gasho sawirka ay waxyaabo aanad u baahnayn uu ku jira sawirka, sidii looga tirtiri lahaa adigoo isla markaana backgroundka ama waxyaabaha qurux badan ee ka dambeeya aanan tirtireyn. casharka maanta marka wuxuu ku saabsan yahay cags oo casharkii hore ah ama vice versa. kii hore wuxuu ahaa wax ka tirtirid wixii aanad u baahnayn, kan laakiin waxaa waaye wixii aad u baahan tahay ee aad isla sawirka markaa ka hilmaantay sidii aad ugu dari lahayd. marka aanu hadal kusii dheeraanayn, example iyaan halkan inoogu hayaa maanta. Open iyaan dhahaynaa. labadan shay ayaan rabaa in aan isku geeyo. kaba soo qaad bahalkan cagaarka iyo miiskan. marka bahalkan cagaarka agtiisa waxaan rabnaa inaan dhigno shay aan markaa aan isleena ku soo baxaya. waxaan samaynaynaa sawirka aan rabnay inaan gelino meeshan ayaan horta kooda hore aan furaynaa. sawirkii aan rabnay inaan gelino waa kan xabaddan tufaaxa. mar walba waxaad ogaataa marka aad sawir samaynayso, sawirada waxa lagu ogaadaa inay reality yihiin. waxay leeyihiin shadow iyo highlight. shadow iyo highlight waxay ka dhigan tahay imika kan hadh ayuu hoosta ku leeyahay ka dhigan inuu dhulka yaallo. highlightkiisuna waxaa waaye markuu iftiin dhinaca ka hayo, dhinacan waxaad u malaysaa inuu ka yara cad yahay dhinacan. sawirkan markii la qaadayay labadan dhinacan ayaa nal badnaa. marka highlightka wuxuu kuu sheegayaa dhinacii markaa qoraxdu ay ka jirto sawirka. shadowguna wuxuu kuu sheegayaa dhinaceeda kale. xaggan ay qoraxdu ka jirtay, xagganna har yar bay leedahay. taas waa fikrad caama oo in laysla ogaado. markaad sawir aad goynayso ee sawir kale aad dhex dhigayso, sawirka kale aad dhex dhigayso waxaa la rabaa dhinaca iftiinka uu ka xigo iyo dhinaca uu harka ka xigo si aad isku waafajiso labada sawir. iminka sawirkan aan rabnaa inaan geyno, inaan halkan ka dhigno. sawirkan markaad eegto hoostiisa dhinacan har bay leedahay, dhinacan laakiin har ma laha. taas waxay kuu caddaynaysaa ayadoo xataa halkan uu nal oolin in halkanna lagaga daaray, halkanna nal kale lagaga daaray, laakiin nalka dhinacan ama tariga dhinacan inuu ka yar awood badnaa oo uu halkan u yeelay hadh. halkan hadduu nal kale xataa uu ka ooli lahaa, harkan uu qarin lahaa oo markuu san usoo bounce gareeyo. marka mar walba waxaa ogaataa meesha harka maahine dhinaca kale ayuu nalku ama qoraxdu ama tarigu ama iftiinku kaa xigaa. taas marka waxaa waaye qaacido oo caama oo markay noqoto photography ama designing ama wax in uu qofka uu ka fikiraa. okay, waa kan tufaaxaan rabnay. tufaaxaan rabnaa inaan qaadano. horta qufulkaan ka furaynaa si aan uga shaqayn karno. kadib waxaan tegaynaa muxuu ahaa select subject tool ama select subject. okay, select subject yaan taabanaynaa. Photoshop wuxuu raadinayaa subjectiga aad rabto inaad select garayso. waan soo dhaweynaynaa control space. dhinacyadaas yaryar yaan eegaynaa inuu si fiican u select gareeyey. waayo marmar halkaasu hadduu rabo saa u select garayn waxaa laga yaabaa inaad waxyaabo sawirka ka mid a inaad ka tagtaa hadhow toole. dhinacan kale aan eegaynaa geerarkiisa inuu si fiican u select gareeyey. okay, kadib waxaan dhahaynaa halka yar baan imanaynaa oo ah select and mask. haddaad rabtid in aad xataa adoo mask aan dhihinba dhinacana waxaa imaan kartaa xagganay kugu taallaa xataa select and mask inta halkan imanaysa. laakiin tan wuxuu rabaa marka aad yani dhinacyada geerarka aad rabto inaad si fiican u hagaajiso si timaha oo kale iyo yaataa la isticmaala. laakiin shay waadix sidan oo ah oo u baahnayn in aad sii taataabato ama sii hagaajiso dhinacan aad taabanay select and mask. okay, v baan taabanaynaa oo ka dhigan move tool. dhinacan ay ku taallaa v waa move tool. markaan saa u wareejiyo hadda waxaan sita keliya waa tufaaxi. wuxuu iga reebay backgroundkii caddaa, kanuu iga reebay. marka maxay haydaan waxaan sameynaa tufaaxan aan qaadanaa, sawirkii kale aan geynaa. waxa dhaca fiiri marka fiiri waa artificial. waa la garanaya inuu waxan yahay wax oo Photoshop laakiin waxaad samaynaysaa oo inaad kasii shaqayso sawirka. waxaad samayn kan iyaad taabani, kadib waxaad taaban control T in aad yarayso ama weynayso ama aad riixdo.
kadib waxaad samey xaggaa geeskaa qabanay sidan aad usoo yaraynay ilaa inta aad rabto something like that ayaan rabaa. waan xaggaasaan kadib okeyda dhahayaa, waan soo riixayaa. kan marka waxaan ka furaa qufulka si aan uga shaqeeya isagana. Okay, hadda waxaa loo malayaa tufaaxu inuu salalayo hoostiisa dhan ujeedaa, laakiin markaan sidaa yar aan idhaa iminka sidan haddaan halkaa idhaahdo inuu meesha dul yaallaa loo malayaa. waa inaad horizonka meesha oo ma aragtay aad la raadisa ayaa qurux badan. waan soo dhaweyneynaa, allahuma salli ala maxamed, xaggaasaan u riixaynaa. uu wen yahay weli, waayo kan caadi ahaanta 2 gacmood baa lagu qabtaa. waa inaad ku yargeegeyso qiyaasta kan intuu leekaan. haddaad mid caynkaasoo kale aad hore u aragtay ood la sinta qiyaastiisa, wax yar baan sii yaraynaynaa, something like that. Okay, tufaaxi marka meeshaan dhignay, hadda tufaaxan salalaya waa inaan ka dhignaa si wax miiska uu yaallo oo kale. waan soo dhaweynay, waxaan taaban maxaa allahuma salli ala maxamed layerkii hoose burushkaan taabani. tanna waxaan ka dhiganayaa muxuu ahaadani madow, alt iyo drag anoo left click haya si aan u yaraysto burushka. akaasa hadda inuu meesha toos u yaallo ayaa loo malayaa. harkii yar markaan u samaynay kan oo kale harkiisii, laakiin waxaa samayn kartaa harka haddaa rabtid in uu si fiican loogu malayo inuu yaallo. waxaa samayn kartaa harkaad ka dhigi kartaa xoogaha jaamud ama muxuu madow saa'ida, adigoo sidan yar dhahaya saas yar. waa kaasa hadda inuu toos yaallo ayaa loo qabaa. waxali waxaa u baahan tahay aad sawir aad rabto inaad sawir kale aad dhex geliso, ama aad sawir aad rabto inaad ama sawir aad gashay aad rabto inaad wax ku soo biiriso, waa inaad mar walba ka fikirtaa cadceeddu xaggay kaa xigtaa, harkuna halkuu kaa xigaa, yacni iftiinku halkuu kaa xigaa, harkuna halkuu kaa xigaa. iminka haddaan san yidhaahdo tan ayadoo sidan harkeedu halkan yahay aan halkan har ugu sameeyo, waa la ogaanayaa inuu sawirkaa fake yahay. marka waa inaad harka dhinacan u jeedo aad u jeedisid shayga aad ku biirinaysid sawirka. iminka san haddaan dhaho anoo og inuu halkan yani harku sawirka uu ka xigay, haddaan halkan hadhir saa uga sameeyo oo kana aan masaxo, mujida fake buu noqonayaa. kan harkiisu dhinacan kan qofkii u fiirsada waayo, laakiin qof walba maaha. marka cashirkeeni maanta taasuu ku eegyahay. taniya intaan dib wada kulmi doono waa walaalkiin Khadar Miicaad oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.